walaalayaal maanta timirtaas ayaan sameynayaa. kusoo dhawaada eesaan u sameyn doonaan ila arka insha allah. muxuu ahay waa sahlan tahay sida loo sameynayo, wax dhib badan ma ahan insha allah. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin aroos hadaa qabtid, haddii martiqaad aad qabtid, munaasabadaha iidoo kale inta adig ku anfacaysaa. aroos hadaa qabtid oo kale disaan u samaysta xataa maasha allah martida waa ku farxayaan. waa kaas. haddii qolyahan aadan haysanin nooca haystada ku samaysan kartaa. xataa aniga hadda siisin iyo joosal hindi ama qumbe iyo waxaasaan ku samaystay, adii wixii aad jeceshaa ku samaysan kartaa. marka waa kaas, waana sahlan yahay maasha allah tabaaraka allah. haddaan ugu cusub tahay subscribe ii saar, haddaa hore ila joogtay like-ta iyo share-ta iigu dhaji. waana mahadsantiin walaalayaal. haddana waan sameynayaa ila arka saan u sameyn doono insha allah. waa timirtii waa i diyaar. nus kiilo camal waaye, xabad dheereed maaha, nuskeed waaye. marka hadda lafahan ka bixinayaa, isla arkeynaa saan ka dhigi doona insha allah. waa isku soo noqonaynaa walaal. hadda lafaan kasoo baxsanayaa, waa isku soo laabaynaa insha allah. timirtii waa kas lafaan ka bixiyey. waxyaabahan dhan iyadaa lagu sameyn doonaa, laakiin hadda rubaca saliid ah iyo iyada isku soo rifaaqaya. dadka qaarkood dabka isla saaraan, laakiin dabka inaan saaro marin, maxaa yeelay faa'iidada timirta iyo tan macsarada xoogaa waa nusqaamayiin. marka dadka qaarkood waxay ku samaystaan subagaas ani marka ma rabi. macsarada saad ku samaysanayaa waa rubac nuska lasii kala gooy waaye. marka waa isku soo rifaaqayaa, si cajiinaan ka dhigayaa, isdhexgelinayaa si fiican. waa isku soo noqoynaa walaalayaal. markaas timirtii waa soo cajiibin way maasha allah, soo cajiimay si fiican isku dhexgeliyey. intaa ii taalo. hadda caanahan dabka soo saarayaa, waa soo gaduudinayaa, waa ayadaa lagu kordiri doonaa insha allah. waa isku soo noqoynaa walaalayaal. caanihi waa ka dabkaan soo saaray, wax yar duloonkooda ama kalarkooda iska bedelayo aan saas waa la walaaqayaa. waa la boodsiinaa, haddii kale caanaha yadkaa gubanayeen. caanihi waa kaas reerka aan rabo ii gaareen, sida wax qalalayo carra waa isku bedeleen. reerkaasaan ka rabay. marka hadda ku kordirayaa insha allah. dandaminayaa waa kaas oo u dhamaatay. hadda waxaan u baahanayaa buskud badan ka soo dhigayaa. bacdaan wax ka qaatay nus. buskudka shaahiga lagu cabo waa kaas. waa soo shiidayaa, isku soo noqonaya insha allah. timirtii aan diyaarsaday weel weyna hadda u baahanahay, intaa iskugu geysanayaa. buskudkii aan soo shiiday caanihii iyagay haddana isku rifaaqayaa. waa isku soo noqonaynaa walaalayaal. waa kaas saasuu noqday buskudkii iyo aan shiiday iyo caanihii iyo muxuu ahay timirtii markaa isku rifaaqay. hadda qaybtii ugu dambaysa noo dhiman, waa soo diyaarinayaa. waa isku soo noqonaynaa walaalayaal. waxaa igu jiro oreo, waa shiidaya asagana, laakiin marka hore kareemkan gudaha ku jiraan ka bixinayaa. kareemkaasaan ka bixinayaa. markaas qaybtii dhexaadna waa ka bixiyey. hadda waa shiidayaa, budaan kasoo dhigayaa, isku soo noqonaya insha allah. buskudkii oreoga aan soo shiiday inta igu diyaarsan. intan waxa waaye qumbi shiidnay. intan waxa waaye sisin. timirtiina waa tana aan diyaarsaday. hadda waa qurxinayaa. saxankii aan saaran lahayna waa ka saxankaana soo saarayaa insha allah.
timirta ayaan soo goostay ayaan leeyahay. marka hore sisintii martida iidoo kale maasha allah si fiican ugu farxayaan. si fiican wayna ugu qoyaa timirta muxuu sisinta kulli waa nafaqo la isku daray. marka safkaan sisina kusoo wadayaa waa isku soo noqoynaa walaalayaal. waa taas xabadii kale wax dhib lama ahan. waa markii Oreo-ga gacanteyda sisinta iga qabsatay maasha allah isku qasmay wixii dhan. marka Oreo-ga saas kuleeyahay hadirtaan. haddii rabtid ayuu nooc buskut ku yaalo saas ku yeelan karta waa shiidaysaa saas ayaa ugu quruxsanaysaa. marka hadda waa soo wadayaa mid walba sida hadda aan yeelayaa. haddana waa markii qumbaha gacanta in la soo dhaqo ma ahan qadii Oreo-ga gacanta la gashid bis waay. markaan waa markii qumbaha saasaan kusoo wadayaa. waa isku soo noqoynaa insha allah walaalayaal. maasha allah markii aan dhammaystiray saas kusoo baxay saasaan usoo qurxiyey. qoryahan aan soo suro haddaadan haysanin waa iska dhaafi kartaa ama istakiinaa ku samaysan kartaa. istakiinka ilkaa lagu baxbaxsado waad sursuran kartaa. haddii muxuu ahay martiqaad aa qabtid, haddii muxuu ahay aroos aa qabtid oo kale, xataa haddii wax badan asaan u samaystid oo kale maasha allah wax qurux badan kusoo baxaya. dadka indhahooda wuu soo jiidan doonaa maasha allah tabaaraka allah. waa kaas inta waxaan ballan qaaday macmacaanka iid oo kaliya inaan sameeyo insha allah waa ka heli doontiin.